kusoo dhawow janalka xidigaha horumarka magacaygu waa Huda Abayo Sofia Abuka iya maantana waxaan idinla qaybsanaynaa shaqo online ah ee aad ku shaqaysan kartid $1,000 bishii adigoo jooga gurigaaga gelinaysid 4 saac ilaa 5 saac inta u dhaxaysa isbuuci waa maxay shaqadaasna shaqadaas waa inta shaqadaas horta aan ka hadlin wax ay tahay shaqada waxay aad ugu habboon tahay haddii aad tahay qof degan meel ka baxsan Yurub يعني سيفي عن فائدة كوسي تهاي سيدا هذا سومالي دقنتها قاصة ما أفريقيا ما آسيا وحياها طبعا شقة داسنا شقة كليتا معهن وحواي شقة ماشان آد لوغو باهية especially Somali community أما Muslim community آد لوغو باهيين online معلم دوكسي مركا online معلم دوكسي هورتا هذا أدونكو سي هورمريا التكنولوجيا وسي عصرية ويسا وحينو فوذين يسا سيدا أول وح وبرين جرني سكة فوض إنا وح وبرنو سيدا عادة إهاد سكولا لآدا معلنا صغر فرديسان يسا أرضي وشرحايا لكن هادير وحا سي بدن يسا وح برشاد نانك أونلاين كا خاصة هادير كوميونيتي مسلمين سي باهدود كوسي بلارن يسا إن ساد دوكسيال راديان معلمين أو سيرفيس كان كسامين كرو زوم كأيكو كبحنا سكايب كبحنا أما كبحنا يو واتساب كان marka hooyooyin badan ayaa dugsiga dhigtaan sida ka warqabta ama aan ka warqabin kaashi anaka idin sheegayno caruuro badan sidoo kale ay dugsi dhigtaan haddana online u sii badanayo marka hal wax oo covid-19 una bare ee tahay in shaqooyinka ka guurayaan shaqsida caadiga lagu yaqaan traditional ka ah ee online u guurayaan marka tan waa shaqo aad oo u wanaagsan ee qaasatan ku sii haboon hadii aad qof Soomaaliya jooga tahay ee quraan si fiican u yaqaano inuu ka faa'iideysto marka shaqada ayay ku haboon tahay yaa isdhahaysa yaa ka soo bixi karo waxay ku haboon tahay qof kasto ee quraanka bartay xaafid ku jecel inuu gudbiyo ku wanaagsan gudbinta service fiican leh waxay ku haboon tahay qof kasto dulqaad badan fahansan dhaqanka caruurta Soomaaliya ku dhalatay iyo caruurta West ku dhalatay inay habka oo waxbarashada kala duwan yihiin oo sidii loo barayo cunuga Soomaaliya jooga iyo cunuga meeshan Western jooga inay kala duwan yihiin dulqaad u yeesha service wanaagsan leh jecel inuu wax gudbiyo baritaanka ku fiican sida hore loo dhahay waa inaad barataa wax oo sii bartaa wanaagsan diinteena nafaraysa marka qof kasta ka soo bixi kara arintaas way ku haboontaa waxa kaliya u baahan tahay waxa waa inaa internet ama telefoon bisla haysatid meel kastoo joogtid ka soo gali kartaa guriga adigoo joogtid iskoolka adigoo joogtid shaqadaada adigoo joogtid waxa anaga aan sheegayno 4 saac ilaa 5 saac waqti online ka aad ku bari kartid ugu faa'iideey kartid ummadaada maamoyin ha ahaato caruur ha ahaato waa soo galaysaa waana baraysaa maadaama oo classka aad sameynaysa level loo kala bixinaysa kugu shaqada xigta kugu fududaato aad waxaad dhigi kartaa oo kale okay levelkan cunugaaga classkiisa hadda ma hay level kala haya caruur kale isku level yihiin ma ka warqabtaa aan class u wada bilaabo saaxadka waalidku kugu caawinaya waalidka ku soo aruurinayaba oo meeshii kaaga bilaabanaysa waxa muhiim ah waxa waaye in aad rabtid waxaan inaad action ka qaadid inaad dabeecad wanaagsan tahay waa ku hagaagaysaa okay haddii marka xidigaheena na daawanayo ee rabo inay fikradan ku dhaqaaqaan meeqa class ay u baahan yihiin isbuuci meeqa camal ee laga qaadi karaa ardaygii ilaa intee ku filan $1,000 hadda meeqa arday loo baahan yahay $1,000 su'aal wanaagsan barkee barnaamijku wuxuu ku saabsan yahay $1,000 4 saac ilaa 5 saac sidee ku heli kartaa of course haddii aasas rabtid anaga sida baarista aan soo sameynay ardayda wax laga qaato maanta waxa way kala duwan tahay waxay ku xiran tahay levelka cunuga uu maraayo waxay ku xiran tahay haddii oo qof weyn ay tahay baraysid iyo haddii ay tahay caruur
sida ognahayba caruurta lacag badan laga qaadaa wax kalena ma aha qofka weyn qof oo waxaa waaye waajibaadkiisa og responsible qaadayo cashirka aad u dhigtay isku dayaa inuu kasoo marka qofkii oo maxaa la dhahay sheeg ardayga oo qofka weyn ah waxaan ogaanay in laga qaado 30 meelahaas 20 ilaa 30 dollar bishii ardayga yar caruurtan in laga qaado 30 ilaa 40 bishii marka isku soo celcelis marka 15 arday galaaskiiba ay tahay laba galaas aa haysatid aan dhahno galaaskiiba 15 arday oo ka kooban yahay haddii la isku dhufto 40 ilaa 15 $600 aa haysataa bishii haddii laba galaas aa haysatidna $1,200 aa haysataa marka arrinta hadda aan kuu sheegayno way ka badan kartaa wayna ka yaraa kartaa laakiin adiga waa 10% adiga ay ka yaraan kartaa 10% ay ka badnaan kartaa waa sida haddadaan camal marka so marka waa inaa xayeysiin wanaagsan samaysaa waa inaad lacagtan intaas waaye levelkeena ku kala xiran tahay haddii yani hadda waxaan tusaale kasoo qaadan oo kaleeto qof oo waxaan u sameyna yani qof oo waxaan aysan ahayn shaqadiisa oo full time oo qof shaqo extra camal ay u tahay haddii aad full time ka dhiganaysin dee kolley waxaad ka bilaabaysaa inaad sabdiyada aad buuxi sidoo kaleeto oo subaxii ilaa iyo galabkii oo kaleeto ilaa 5 ilaa 6 class aad qaadbishid taa marka iyadana way kuu sii badanaysaa numberka kolley aadi unbaa ogaan kara haddii rabistaas weyn ay kugu jirto marka haddii aan soo koobno yani fikradda waxaa waaye inaad macallin dugsi online aad noqotid aad u noqotid muslimiinta communityga ee westiga ku nool ee aad u raba haddeer inay caruurtooda quraan ay baraan dhanka onlineka weli xate aadna ku heli kartid sida ugu fudud aad ku heli kartid dadkan ardaydaana ee tahay inaad ka bilaawdid facebookkaaga instagramkaaga yaa kugu jiro yaa meelahan degan ee aad ka taqaana ee aad wargelin kartaa inaad servicekan aad bilaabaysid sidoo kaleeto aad adigana tahay qof oo yani mas-uul ah waxaan kasoo bixi kara rabis fiican leh qur-aanka si fiican u yaqaano oo daacadna ay ka tahay service badan si wax loo gudbiyna yaqaano kan fahmayna inay dhaqamada dhanka waxbarashada ay kala duwan tahay qaaradii iyo intoo kaleeto mid ugu dambeentana ee tahay inaad communityyaasha kala duwan ee facebook ama instagramka joogaan oo kaleeto aad la xiriirtid aad servicekaaga horgeysid amaba aad caadi toos aa u samaysid aad rangaraysid aad tiraahdid dadkii yani target groupkaaga intaad dooratid hadduu af soomaali ku hadlaya hadduu af carabi ku hadlaba aad soo hordhigtid waxa aad serviceka aad u haysid marka fikradda intaas ku kooban tahay xidigeen haddii aad fikradan aad rabtid inaad bilaawdid nala qaybso hoos haddii aad hore u samaysidna sidoo kaleeto nala qaybso haddii fikradooyin kaleet aad haysid aad rabtid inaan ka hadalnana sidoo kale bonis ahaynaade la qabsanaynaa marke intaan haddaa soo gaartid bonis oo qalantaa marka arrinta aan kugu darayna waxaa waaye in aad haddii aad ku dhaqaaqday macallin dugsi ku dari kartid af soomaaliga waxaa ognahay maamooyin badan inay u baahan yihiin caruurtooda waalid badan in caruurtooda u baahan yihiin inay luqadii ay qoraan ay bartaan marka haddii aad ku dari kartid inaad kusoo dartid luqadda soomaaliga inaad bartid ardayda yani qoraalka dad badana qoraalka aad ugu liito oo u baahan dhawaaqiya xatee wixii erayadii kala duwanaa iyo waxyaalihii dhan aad caruurta ka caawisid waalidiin badanaa ku farxi lahayd waalidiin badanaa gada lahayd servicekaas oo kale who knows kaas asacate between $20 ilaa $40 asacate servicekaas aa qaadi kartaa kis waxaa gadis waa waqtigaaga somaa boqolkiiba quraanka xitee aa baran karo waaba haysataa markaas customerkii waxaa dhehaysaa uun aad una samaynaysin hadda af soomaali rabti inaan iigu darane waa intaas haddii aad already quraan arday ii tahay waaba uu sii raqiisinaa madaa ardaygeyga aad tahay soo dhaweyn darteeda waaba janis weyn way kaas boqolkiiba boqol marka booniskaas a idinla qaybsanaynaa maadaama inta aad soo gaarteen waxaan rajeynaynaa inaad ka hesheen janaalka waxaa idinkugu soo gudbinay marka insha allah haddii aad ka hesheen haddaa rabti inaad wax nala qaybsatiin hoos noogu soo qoro haddii aad already aad ku dhaqaaqdeen arrintaaniti ayadan nala qaybsada haddii aadan ku dhaqaaqin ayada xatii nala qaybso halkan hoose xatii ka heli kartaa
dad aad kala xiriiri kartid amaba xayeysiintaada ku sameyn kartid serviceka aad rabtid inaad sameysid subscribe dheh janaalkeena like saar insha allah ilowin gambaleelka mar kasta wax soo gelina soo youtube kuugu sheegay inaa wax soo gelina insha allah xidigaheena waa idin jecelnahay waxaa idinku ognahay xasuusta allah مع السلامة مع السلامة